السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد يا آد يا آد أيام دي سلامي. أنا وهرا وحاني كوسي شاقي المارتي رئيس الوزراء المقعابية هاي أنا وقصي هرد عي أيان حلقة دين صو شاقي حلقة هذين الوضع واقع رئيس الوزراء هادير تانا ماركت وراقي سي الوضع واقعي ساقي حسن الشيخ محمود اسكرب تاقن أيان هذا الوضع واقعي حق خوصان هايي waxaan ka warqabay ninkan in xalal la dhis maaragtay waraaqdiisu qoran tahay isla xalay in lagu dhawaaqayaan aniga la ii sheegay laakiin dibay u dhacday sababtii dib ugu dhacdan idiima sheegi karo waa lagu dhawaaqay ra'iisul wasaarihii cagta ku riixa dhugta aad iyo aad aan idiin salaamay waa ninkii xil guntada Qays Cabdulla Kaariye marqaatiga nool caqalka isku matalisa Kaariye Khayre aad iyo aad ayaan idiin salaamay waxaa lagu dhawaaqay ra'iisul wasaarihii 21aad ee wadanka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo asagii oo isgarab taagan ayaa hadda lagu dhawaaqay waa war aad iyo aad u farxada waa war maaragtay ummadda Soomaaliyeed oo dhan guusheeda waa war gaar ahaan guulo ah beesha ogaadeen oo ka dhashay ra'iisul wasaaraha loo magacaabay ra'iisul wasaarihii 21aad ayay hal xaba ka heleen 21 ra'iisul wasaare ee Soomaaliya magacawday beeshaas ogaadeen la yiraahdo waa ra'iisul wasaarihii koobaad oo title weyn oo aan wax wasiir ka weyn ma sahelin ma jeerteena helay oo ku celceshaday awrtabla helay mareexana helay oo ku celceshaday waxa helay isheeg beesha la yiraahdo maxaa ilaahay haduu ku sameeyo gol yahay war hawiye daarood buu heleen hawiye daarood markii laga reebo nimankan ogaadeenka way ku celceshteen xaqiiqada runta markaan idin sheego dhul bahanta helay waxaa helay ii sheegeen nimankan horta waa wada heleen kulligood beelaha waaweyn oo ursangeli markii laga reebo ursangeliga maaragtay hartida markii laga reebo waa wada heleen laakiin beesha ogaadeen oo laandheeraha oo tirada badan oo adduunka oo dhan degta ilaa Mareykan ilaa Yurub ilaa Soomaaliya geyiga meel aan laga helin ogaadeen male waa markii koobaad ay heleen ra'iisul wasaaraha war ku dhufta lugta waa markii koobaad ay ra'iisul wasaaraha ay helaan waa ku faraxsan anigu waa soo dhaweynaya abtiyaashii maanta inay cadaalad heleen laakiin abtiyaashii waxa rabaa in la dardaarmo maanta waxaan leeyahay kabaha 49ka ah ama 50ka oo numberka ah wadatiin ra'iisul wasaaraha noqoteen masaakiinta ha kula istaagnina masaakiinta kabaha 49ka ah dadka u turo tartiib u socda meesha kabaha dheer dhigaysiin fiiriya abtiyaalo xilkan waa culus yahay wala dhan oo wasiiro oo culays badan ay sugaaye inaa wasiirada soo xushiina la ka rabaa wasiiro kartila inaa soo xushiina la ka rabaa waxaa la ka rabaa inaa madaxweynihii ka soo doortay Soomaaliya oo dhan oo intaas ordaysa aan la shaqaysiin oo u noqotiin maaragtay aad u noqotiin daacad inaan la ka shukaamin oo la ku diro la ku horkeeno qabiil la kaga horkeeno waa inay hebel la kaga horkeeno ninkaas Xasan Sheekh oo labada goor la soo celiyo professorka ummadda Soomaaliyeed rabto inaad la shaqaysiin oo aad si sharaf leh ula shaqaysiin oo aad si cadaalad ula shaqaysiin la ka rabaa haddaad nimankii ogaadeen aad tihiin inaan la kaga yeerin Puntland لين كغيرن كوفر قلبيد لين كغيرن هيرشابيل iyo galmudug meesha la yiraahdo Jubbaland oo dhagta wax leen kugu sheegan leen ka raba aaga hadina inta tiraahdeen marka wax aragteen sidii daacadaada calooshin u furnaan jirteen wax u sheega ha qarinina aaga war muxuu ii sheegi inta tiraahdeen sidii daacadaada u sheega ummadda Soomaaliyeed hogaankii labaad u qabateen oo wadanka madaxweynaha ka sareeya ra'iisul wasaaraha hadda noqotiin waa labada hay'adood ugu sareysa golihii wasiirada oo ugu awoodda badnaa oo madaxweynuhu kugu farasho gasharin adaa soo dhisaya golo kartila inaa ka dhigtaa laga rabaa warsheer gareeya maanta masadareen ma jira maanta wax dareen ma jira hadda idin sheegay ra'iisul wasaarihi waad sidoo ogtiin baraha bulshada ku jiray xogaa yaraan jiiftay inta jiifay la iga faa'iideystay oo asagii maaragtay la magacaabay aan ku soo kaca hadeertan laakiin waxba dhaxayga ma horeey 25 daqiiqo ugu horeeya asagoo dhan intuu magacaaban yahay hadeertan laakiin xalad horaan idin soo sheegay qaybta YouTube kana waa kaga sheegay Facebook kana waa iga go'ay anoo idin sheegaya inuu magacaaban yahay liiska ku soo qoran yahay waan ogaa dowladna ma ahan dowlad maaragtay shacabka maaragtay wax ka qarqarisan ma ahan ninkan inuu magacaaban yahay anigu waa hela xogtiisa shalay horaan si hela inuu magacaaban yahay liiskana ku qoran yahay Xasan Sheekh oo ka dhaadhiciyay intii ra'iisul wasaaraha raadinaysay inuu ninkan magacaabayo oo si sharaf leh ula doodayay maalmahan oo dhan kana dhaadhiciyay oo nin walba soo raaliyo oo diro leeyahay madaxweynuhu waa kaayira ayaan anigu maaragtay soo helay
waxaa farxad weyn wax lagu farxa in ra'iisul wasaarihi maanta magacaaban yahay nimankii nabad iyo nololaha ilaa shala soo qorayaan arkay ra'iisul wasaare soddon beri dhaafay oo madaxweynaha la dhaafay maanta ka hor maana arag wuu la dhaafay madaxweyne soddon beri la dhaafa waxa waaye madaxweynihii maaragtay wuu iskala jiifta hadda ka hor farmaajo ku qabsada farmaajo wuxuu yiri xasan cali kheyre markuu riday soddon beri wuu dhaafiyo xukuumadii ma soo qorin waxaasoo dhan la wareejinaya raggii wakiilada u ahaan jirana si hoosaa wax loogu sheegay oo facebookyada wax soo dhigi jira cali yara cali cool down la yiri calm down waxa ma soo qori kartiin waa loo sheegay dowladii aad macnaha aad dadka ku walaacin jirteen ama dadka ku waali jirteen meeshan kama taliso waxa la yiraahdaa dowladda meeshan ka talisa xasan sheekh maxamuud oo hogaamiye ka ah waxa la yiraahdaa dowladda heshiisa iyo Soomaaliya heshiisa iyo dunida la heshiisa la yiraahdaa dowladda magaceeda ma anti Facebook ma anti social media ma anti ishaq en mushaarka lagu siinayay ishaq en dad aan la aqoon oo amal la aqoon oo la yiraahdo isxilqaan ku mushaarka lagu siinay ma ahan tano waa dad la yaqaano oo soo halgamay oo ummadda u soo halgamay oo dowladnimadan u soo halgamay ayaa xaq ku leh isdajiya liya tartiibna u socda ninkii cali ahaana wuu ku qarcay waxaan u maleynayaa cali inuu markaa hadda xoogaa soo dhadhow yahay xasan sheekhna xil uu ka rabo gobolkiisa inuu sii joogo raba cali yara cali anuu cali yara cali waa u sheegay dadka Soomaalida waa u sheegay waa walaalkay waana ila dhasha mana uu ogolay la taabto korkiisa ninkii taabta anuu waa la xisaabtamaya haddii cali yara xataa la handado anuu mucaarada noqonaya haddii la handado xataa waa walaalkay nin walaalkiis dhimasho ogolna ma jiro nin walaalkiis in wax la yeelo ogolna ma jiro laakiin siyaasadii aragtidan ku kala duwan aniga cali yara intaas kaliya nin walaalkiis in wax la yeelo ogol adduunka ma jiro aniga walaalkay way cali yara dowladuna ma hajuumi karto 5 sano wax ka halgamayay badbaado qaran ku jiro saxaafada intaasaan dagaalamayay raggii dowladda u soo jilba maxaan ku jiraa cali yara waa bar aniga igu taale faraha ka qaada wuuna soo hanuuni doonaa aqligiisa u soo noqon doonaa dadka nabadii nololna waa la sixraa maskaxda laga xadaa balaaya loo sheegaa wuuna soo noqon doonaa cali yara insha Allah ta'ala laakiin qof u caga jugleyn karta iyo qof qabiil wax ugu sheegan karta inaba ma hayraatee ma jirta cali yara waa ila dhashay waa walaalkay ehel iyo qaraabaan nahay meel ma kala jirno hadduu aan maantay aan geeriyoodo oo anigu ilaahay teedi ugu timaado ninka isoo raadinayo waa igu imaanayo koobaad asagana hadduu geeriyoodo maanta nin ka naxayo raadinayaana ma ogolay cali yara in la taabto siyaasadii aragti kaliya kala waday mana caayi jirin aniga lafihiisana waxba dhibi jirin laakiin siyaasaddan ku dhaliili jirin igama duubna anoo cali yara caayaya oo aflagaado u geysanaya igama duubna waxa iga duuban kaliya cali yara anoo ku dhaliilaya inuu dadkiisa u gafayo oo qabiilkiisa u gafayo kaliya anoo maaragtay ku dhaliilaya cali yara iga duuban insha Allah ta'ala ra'iisul wasaaraha waxaan leenahay hambalyo golaha wasiirada culayska badan oo ku sugay soo dhis ummadda Soomaaliyeedna waxay ka rabtaa inaad maaragtay hoggaan fiican u noqotid inaad maaragtay ka jiifan oo ra'iisul wasaaraha markii lagu siiyay adaf meesha ka soo bixin guriga ra'iisul wasaaraha ka soo dhex bixi waayeen ummadda Soomaaliyeed waxay ka rabtaa inaad ku hagto wada wanaagsan cadaalad inaa ummadii xasaanadaha lahayd oo eedaha badan wadanka soo galay inaan lagu degdegin wixii dambi lana dambigooda si toos ah loogu qaado oo qoladii aan dambi lahayna aan lagu degdegin oo wadankooda ay ku noolaadaan taasaan ay ka codsanayna adii madaxweynaha ra'iisul wasaare ninkii dambi lana in maaragtay hay'adaha ku shaqada leh loo daayo oo ayagu maaragtay shuruucda soo marsiyaan hay'adihii faylasha tirada badan hoosta iska dhigtay sida kuwa garsoorka oo kale iyo kuwii dadkii badnaa oo baaba'ay hoos iska dhigta faylashoodiina waa inaad si degdeg ah wax uga qabataan oo golaha wasiirada oo soo dhisaysid ay change ku sameeyaan ayagoo dhan la bedelo kuwaas waxba ma galaan kuwa wada yes baan ay ahaayeen oo baqaya nin garsoor loo dhiibay oo baqan nin raga ma ahan waxaa la rabaa cadaaladii oo dhan ummadda Soomaaliyeed loo dhiibay inuu kiiski loo keeno oo gaashaanka u daruuro oo siday taa u qaado madaxweynaha waxba ka dhageysan ra'iisul wasaaraha waxba ka dhageysan ilaahay dartiisa daacad u qaada la rabaa ninkaas ragga oo kale noo soo xushiinaan ka sugayna golahiina wasiirada soo xulaan anigu xilguntada waxaan idin leeyahay aad iyo aad idin salaamaya warkan xalad hore idin soo gudbiyay isagoo oo update idin soo gudbiyay waa sii hesheen ninkii la magacaabay maaragtay sidii xogta aan ku helayna ahayd xaqiiqada runta markaan idin sheego aad iyo aad idin salaamaya